بسم الله الرحمن الرحيم جمعة ونكسنا قيارتا نلا سعوتي دلكين بميل كستوات جوكتان كسو دوادا مركلة يتبينتا عصوب برامجكا قبناها برو شو وعفري طبانكا بيشا نوفمبر سنة كالباكون شاني لباتان تبينتا قضبادا ندين كوغوهايو وحاكامدا دولة مريكانكا ايا قرشين ايسا اني دوان ليسكا ارقاق حسادا كدرتو ururka اخوان المسلمين sida ay tilmaamayaan warar sirdoon oo soo baxaya iyadoo qaar ka mid ah dawladaha dunida islaamkana arrintan laga hadlay haddaba maxay tahay sababta ururkan loogu aqoonsanayo mid argagixiso saameyn intee leegayso ku yeelan doona hamigii ay kala haayeen inay hogaamiyaan qaar ka mid ah wadamada dunida islaamka dawladaha muslimiinta qaarkood ayaa arrintan gadaal ka riixaya sida durbaba ay tilmaamayaan warbixinta la helayo faafahinta barnaamijka ayaan idinkugu hayaa arrintaas oo aan ku gorfayn doonaa dowladda masarna waxay ka walaacsan tahay xaaladda dib u furid la'aanta wadahadalka wejiga labaad ee dagaalka ka soconaya magaalada Qasa iyadoo arrintan ay ku tilmaantay mid muujinaysa xaalad murugo iyo argagax leh haddii dib loogu laabto dagaalada haddaba maxay tahay qorshaha la hordhigay dowladda Turkiga ee ka yimi wadankaasi Masar oo ka baqanaya dagaalka haddii uu qarxo inuu saameyn ku yeesho wadankiisa 25 dowladood ayaa la soo saaray oo shidaal ku taageeray nidaamka Israa'iil xilliga ay dagaalada kula jireen magaalada Qasa oo halkaasi dhibaatooyin xooggan ay ka dhaceen warbixintan uu soo saaray urur Mareykan waxaa ka soo dhax muuqday laba ka mid ah dowladaha dunida islaamka kuwaas oo haatan la isweydiinayo saameynta xooggan ee arrintan ay ku yeelan karayso dowladda Mareykankana waxay diyaarado iyo hub ka iibinaysaa jasiiradda Taiwan xilli Shiinaha ay wadaan dhaqdhaqaaq xooggan oo ku saabsan sidii jasiiraddaasi ay dib gacanta ugu ceshan lahaayeen saatee dhinaca kale Shiinaha ayaa digniin u diray dowladda Japan kadib markii la sheegay inay ka fogaadaan in wax saameyna ay ku yeeshaan faragelin kasta oo dalka Shiinaha uu sameeyo in ay dhinaca Japan ay faraha la soo galaan oo xaaladda uga sii dari karaysa sida la tilmaamayaba ikhtiyaarta inala socotay qodobadaas ayaan ku faaqaday wadda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in cunaqabatayn lagu soo rogo isla markaana loo aqoonsado urur argagixiso ikhwaan muslimiin oo kamid ah ururada ugu facaweyn dunida islaamka arrintan ayaa waxaa la sheegay inay tahay hindisa ka yimi xogayaha muraha dibadda Marco Rubio oo dalka Mareykanka waxaana arrintan la hordhigay dhowr wadan oo Carab ah iyo wadanka Turkiga hasaatee waxaa la tilmaamayaa qaar ka mid ah dowladaha Carabta talaabadan inay soo dhaweeyeen warar soo baxaya waxay tilmaamayaan arrintan in lagala tashtay dowladda Masar wadanka Saudi Arabia halka Imaaraadkuna uu soo dhaweeyay hasaatee waxaa jira wada hadal wali adag oo la leeyahay wadanka Turkiga maadaama Rajab Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AK Party ay aad ugu dhow yihiin ururka ikhwaan muslimiin oo qaybo ka mid ah dunida islaamka martalada ka soo qabtay laakiin dowladahaasi ay si weyn u aqoonsadaan wasaaradda muraha dibadda ee Mareykanka ayaa doonaysa in ururkaasi loo diiwaan geliyo mid argagixisa sida Hamas iyo sidoo kale ururka Hezbollah ee ka dagaalama wadanka Lebanon sida wararku ay tilmaamayaan shabakada wararka ee Ra'yul Yawm iyo sidoo kale qaybo ka mid ah warbaahinta Carabta ayaa maanta oo Jimcaha qoraya in warar sir ah oo soo baxay gudaha Mareykanka laga helayo gaar ahaan wasaaradda amuraha dibadda Mareykanku ay muujinayaan talaabo ku saabsan go'aaminta in ururka ikhwaan muslimiin lagu daro liiska ururada argagixisada ah oo ay gaartay baa la yiri marxalad kama dambaysa isla markaana ay ku dhowdahay in si rasmi ah loo shaaciyo arrintan talaabadan ayaa lagu tilmaamay in uu hogaaminayo wasiirka amuraha dibadda Mareykanka Marco Rubio iyadoo si dhameystiran loo diyaarinayo galdacwadeed sharci ah iyo mid siyaasadeed oo ku aadan in ikhwaanka loo aqoonsado in uu yahay urur argagixiso sida lamid ah ururada gobolka ee Hezbollah iyo sidoo kale ururka gobonnimo doonka Falastiiniyiinta ka shaqeeya ee Hamas wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa diyaarinaysa tallaabooyin lagu xayirayo lacagaha iyo waliba dhaqaalaha bangiyada u yaala ururkaasi sida wararku ay tilmaamayaan warbixintu waxay leedahay sida ila xog ogaala ay shaaciyeen wasaaradda
maaliyadda ee Mareykanka ayaa bilowday diyaargarow sharci mid maaliyadeed iyo mid farsamo oo ku saabsan in la socodka dhaqaalaha iyo hantida la tuhunsan yahay in lala xiriirinayo ururkaasi ee gudaha Mareykanka hakinta iyo qabashada hantida iyo guryaha ay leeyihiin ururkaasi gudaha wadankaasi cunaqabatayn la saarayo shakhsiyaad iyo mid hay-adda guud ahaanba lagu soo rogayo iyo warbixin loo gudbin doono bangiga dhexe ee dowladda Mareykanka ee Federal Reserve Bank waxaa sidoo kale lagu tala jiraa baa layidhi in tallaabo kormeer iyo xanibaad dhaqaale oo ka dhana ururkan laga sameeyo wadamo ku yaala dunida Carabta Yurub iyo sidoo kale wadamada bariga dhexe oo ay ka mid yihiin dowladaha islaamka qaarkood go'aanka ayaa sugaya baa layidhi mid sharci ah wararka ayaa tilmaamaya baa layidhi in go'aanka siyaasaddu uu ku salaysan yahay in aqwaanka lagu daro liiska argagixisada uu horay u dhacay balse hadda la sugayo oo kaliya in la dhammaystiro hababka sharci iyo maaliyadeed ee la xiriira ururkan iyo waliba ansixinta dukumentiyo farsamo oo u dhaxeeya wasaaradaha Mareykanka ilo ku dhow arrintan ayaa sheegaya in arrintan waa go'aan siyaasadeed oo la qaatay waxaana ka harsan oo kaliya qaabaynta iyo fududeynta nidaamyada sharciga iyo maaliyadda ee Mareykanka taas oo haddii uu dhaco ururkaasi uu wajahi doono mid ka mid ah marxaladihii ugu adkaa uu mari doono maadaama in ku dhow qarni uu saameyn ku leeyahay dunida islaamka haddii tallaabadan si rasmi ah loo shaaciyo waxaa yeelan doontaa baa layidhi saameyn ballaaran oo ku saabsan xarumaha hay-adaha iyo shakhsiyaadka la tuhunsan yahay in lala xiriirinayo aqwaanka gudaha Mareykanka iyo dalal badan oo ka mid ah dunida islaamka sida warkan uu tilmaamayaba ilaa iyo 25 dowlad ayaa la soo saaray liiskooda kuwaasi oo la sheegay in Israa'iil ay ku taageereen shidaal xilligii weerarada ay ku qaadayeen gudaha magaalada Gaza waxaana shidaalkaasi qaarkood loo adeegsadaa diyaaradaha dagaalka sida wararku ay tilmaamayaan ururka caalamiga ee lagu magacaabo Oil Change International oo ah hay'ad aan dowli ahayn ayaa khamiistii shaacisay warbixin cusub oo muujinaysa 25 dal oo ku taageeray Israa'iil shidaal iyo badeecooyin batrool oo muuqda baa layidhi intii uu socday duulaankii iyo waliba dagaalkii ka soconaya magaalada Gaza warbixinta ayaa lagu soo bandhigay shir madaxeedka COP30 ee ka soconaya wadanka Brazil waxaana lagu xusay dhowr wadan oo qaarkood ay ka mid yihiin dunida islaamka inay arrintani la kulahaayeen dalalka bixiya shidaalka ilaa iyo hadda la sheegay waxaa ka mid ah Azerbaijan iyo Kazakhstan oo ka mid ah dunida islaamka oo bixiya 70% shidaalka ceeriin ee Israa'iil u gudbay intii u dhaxaysa 1 November ee 2023 iyo 1 October ee 2025 Ruushka Greega iyo Mareykankuna waxay hogaaminayaan liiska dalalka u diray shidaalka la sifeeyay Israa'iil Mareykanka ayaa lagu tilmaamay dowladda kaliya ee Israa'iil siisay shidaalka loo yaqaanay JP8 oo loo isticmaalo diyaaradaha dagaalka ee dunida marka Israa'iil ay duqeymaha fulinaysay ururka Oil Change International ayaa ku eedeeyay dalalkan shidaalka u gudbaya Israa'iil inay Britaareen dagaalo soconaya muddo dheer oo dhibaatooyin ay ka soo gaarayeen dad rayida ilaa iyo hadda dowladaha qaar warbixintan dhaleecaynta ee loo soo jeediyay ma aanay bixin wax jawaaba oo ku saabsan arrintaasi dowladda Masarna waxa ay walaac ka muujinaysaa xaaladda sii xumaanaysa ee aan ku aadan baa layidhi inaan wada hadaladii wajiga labaad ee dagaalka Gaza iyo heshiiskiisa aan la gaarin iyadoo arrintan ay ka muuqanaysa baa layidhi in dagaalka uu suuragal u noqon karo mar kale inuu dib u bilowdo dhinaca kale dowladda Masar ayaa warqad u gudbisay wadanka Turkiga maadaama Israa'iil ay hore uga baqanayso in ciidamo ay ka mid yihiin kuwa Turkiga la keenay magaalada Gaza ila sare oo Masri ayaa sheegay in dowladda Masar ay si weyn uga walaacsan tahay hakadka ku yimid hirgelinta wajiga labaad ee heshiiska Gaza iyagoo u muuqanaya calaamado muujinaya in xaalad militari ay hadda jirto ay isu bedelayso xaalad joogto ah oo qeexaysa xuduudda cusub oo kala qaybinta gudaha isla markaana ay kor u qaadayso in 100,000 oo qof oo barakacayaal ay ku laabtaan guryahooda mid ka hor istaagaysa ilaa iyo
sida ay sheegayaan ila ku dhow telefishinka Al-Arab Al-Jadid dowladda Masar ayaa qadka jaalaha ah ee hadda lagu dhisay gudaha Gaza inuu noqdo qayb kala qaybin oo rasmi ah taas oo suuragal ka dhigi karaysa in magaaladaasi qayb ka mid ah Israa'iil ay qaadato walaac badan ay ka muujinayso dowladdaasi waxaa jira xiriiro ay sameeyeen wadamada Turkiga iyo Masar telefishinka waxa uu leeyahay waxa la xaqiijiyay in booqashadii wasiirka amuraha dibadda Masar Badri Abdulcaadi uu ku tagay Ankara ay qayb ka ahayd diblomaasiyadda ay Masar si degdeg ah ugu doonayso in lagu jabiyo jahwareerka siyaasadeed ee ka jira sidii loo soo celin lahaa heshiiskaasi isla markaana dhinacyadu ay si dhab ugu qaadi lahaayeen dowladda Masar ayaa ka cabanaysa haddii xaaladda dagaalku ay sii kordhaan inay saameyn ku yeelanayso wadankeeda loona baahan yahay dunida inay si degdeg ah arrintan u soo farageliyaan dowladda Mareykankana waxa ay heshiis la gashay wadanka jasiiradda la yiraahdo Taiwan kaasi oo ku kacaya 330 milyan oo dollar oo lagu iibinayo diyaaradaha dagaalka xilli Shiinaha uu doonayo jasiiraddaasi in uu dib u loqo saate dowladda Shiinaha ayaa sidoo kale degniin u dirtay wadanka Japan waxana ay ku tilmaantay inay faraha kala baxdo xaaladda jasiiradda Taiwan haddii kale cawaaqibka ka dhashay ay qaadan karayso dowladda Mareykanka ayaa ansixisay heshiis cusub oo Taiwan lagu siinayo diyaaradaha dagaalka oo casri ah kaasi oo ku kacaya 330 milyan wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa ku dhawaaqday heshiis cusub oo ay Taiwan ku siinayso qalab iyo taageero farsamo oo loogu talagalay diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi kuwaasi oo ay ku jiraan diyaaradda F-16 iyo C-130 iyo noocyo kale oo ka tirsan ciidamada cirka qalabka ay u baahan yihiin wasaaradda ayaa sheegtay in heshiiskan uu ka kooban yahay qalab dayactir iyo qalab farsamo taageerada injineeriyadda iyo waliba bixinta logistiga iyo kordhinta adeega u diyaar ahaanshaha baa layidhi ciidanka cirka ee Taiwan inay ka hortagaan weerar kasta oo Shiinaha ku soo qaado war-saxaafadeedka dowladda Mareykanka ayaa xustay in tallaabadan ay tahay mid xoojinaysa awoodda Taiwan ee la tacaalidda hanjabaadaha hadda ay wajahayaan iyo kuwa u iman kara mustaqbalka iyadoo loo diyaar garoobayo dagaal dhinaca cirka ah oo ay suuragal tahay in jasiiraddaasi ay la kulanto heshiiskan ayaa ah kii ugu horeeyay ee maamulka Trump uu hub uga iibiyay Taiwan iyadoo wali xiriirka iyo waliba hanaanka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya Shiinaha aanu xumayn dhinaca kale dowladda Shiinaha ayaa digniin u dirtay wadanka Japan waxana ay ku eedeeyeen inaanay faragelin arrinta la xiriirta Taiwan iyo waliba tan Shiinaha haddii taasi ay dhacdana ay cawaaqib xun kala kulmi doonto dowladdaasi Tokyo dhinaca kale dowladda Japan ayaa ku warantay in dagaalka dhaca Taiwan uu saameyn ku yeelanaysa amniga qaranka ee wadankaasi Japan